qoraaga la yiraahdo Ibraahim al-Fiqi oo ah qoraa caan ah oo uu qoray buugaag aad iyo aad u fara badan. Buugaagtiisana waxaa ka mid ah buug la yiraahdo Fikirka Wanaagsan, waxaana qayb ka mid ah buuggiisa uu ku soo qaatay qiso yar oo dhex martay laba wiil oo dhalinyaro ah oo meel ka wada shaqaynayay, waxaana la kala oran jiray Muncim iyo Muniir. Labada dhalinyarada ah muddo markii ay meel ka wada shaqaynayeen ayaa waxaa dhacday in shirkaddii ay ka shaqaynayeen madaxoodii uu ku yidhi shaqadiina waan ka maaranay, waadna fasaxan tihiin. Dabadeed arrinkaa markii shirkadda labadii dhalinyarada ahaa u sheegtay, aad ayay uga murugoodeen. Mid ka mid ah dhalinyaradii ayaa waxa uu yidhi shirkaddani waa ina eriday, insha Allah berina shirkad kale ayaynu heli doonaa, weliba mid ka sii fiican baynu heli karaynaa ee aynu raadsano. Kii kalena wuxuu yidhi maya, sheekadu sidaas maahee, meeshani shaqo lagama heli karo, waayo shaqada helisteedu waa ay adag tahay oo shaqooyinka way wada buuxaan, cid inaga qaadanaysaa ma jirto. Nimanka shirkadda madaxda ka ahna waa ay ina dulmiyeen. Halkaas ayuu ka galay sheekadii. Wiilashii dhalinyarada ahaa waa ay kala tageen. Kii dhinaca fiican wax ka eegay markiiba shaquu raadsaday oo waa uu howlgalay. Meelo badan ayuu codsiyo u qoray. Muddo ka bacdi kolba meel markuu tagaba, markii dambe bangi ayuu shaqo ka helay. Dabadeedna bangigii buu kor uga sii kacay oo dalacay ilaa uu noqday qof bangiga farac ama laan ka mid ah maamule ka noqday. Wiilkii kale waxa uu ku dambeeyay walaacii walbahaar iyo in maalin kasta uu ku celceliyo waa la ii dulmiyey, si khaldan baa shaqadii la iga eriyey. Kadib noloshiisii waxay noqotay nolol mugdi ah. Intaa kadibna uu shaqo waayo, hurdana waayo, daawashada filimada uu badsado, aakhirkiina uu ku abuurmo cudur isku buuq ah, mental stress. Dulucda qisadani waxay tilmaamaysaa qofku waa sida uu u fakiro. Haddii fikirkaaga aad dhinaca wanaagsan ka eegto oo aad ogaato noloshan inaad wax qabsan karto adigoo Alle kaashanaya, waa ay kuu hagaagaysaa. Noloshu dhinaca fiican waad ka galaysaa. Haddaadse wax walba dhinac xun ka eegto oo dhinaca mushkilada aad ka eegto, ugu dambeyntii waxaad noqonaysaa qof aan meel gaarayn oo noloshiisa inta badan dhibaato ku noolaada. Waxaana muhiim ah qofka inuu wax walba dhinac wanaagsan ka eego.